ma u baahan tahay inaad isbuuc gudihiisa aad ku riddo inta kiila adiga aa rabtid waaye ma ahan kiilaadka inay ku xukumayaan waa adiga inta kiila aa rabtid fadlan videogan daabo waana ka heli doontiin insha allah maanta casharkeena wuxuu noqon doonaa jaysiidka iyo sida la sugu caateeyo iyo qaababka loo isticmaalo iyo faa'iidooyinkiisa haddii aan ugu cusubtahay subscribe noo saar haddaa hore noola joogi jirtina like comment iyo share waana mahadsantiin sida wanaagsan ay la socotaan mar walbo ilaah subxaana wa tacaala meel walbaa joogtaan ha idinku xafido marka waxaan idin leeyahay videoga daawada faa'iidooyinka maanta oo wata maasha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalay qaaliga kusoo dhawaada janalkayga Muneza meel walba adduunka joogtaan inay igu caafimaad qabtaan aan rajeynaa fadlan haddii ay tahay marka ugu horeysa aad janalkayga soo booqanaysid waxaa kaa codsanaa inaad subscribe noo saarto gambaleelkana furto si muuqaal walba oo kugu soo dhaco amaba u noqdo daawada ugu hore waana mahadsantiin sida wanaagsanaa mar walba ila socotaan kommentidiina quruxda badan leh ducooyinkii dhiirigelinta isugu jiro jasaakumullahu khayrna idin leeyahay walaalay qaaliga maanta waxaa rabaa videogan inaa idinkaga faa'iideeyo dad badan xitaa waxaa arkoo dhahay jaysiidka sidee loo isticmaalaa horta muhiimadu waxay tahay jaysiidka waa laisku caateeyaa kaliya ayaa dhegta ka maqalnay laakiinse wax markaas oo la taaban karo oo la arki karo faa'iidooyinkiisa ma leeyihiin waaye midda taaganaa midaas waan wada ognahay in laisku caateeyo maxaa faa'iido oo leeyahay videogan iyo siyaabaha laiskugu caateynaya insha allah marka daawasho wacanaa idin leeyahay walaalay qaaliga jaysiidka horta waa maxay ahayto looma isticmaalo kaliya in laisku caateeyo wuxuu leeyahay fitamiino aad iyo aad u badan oo jirkaaga u baahan yahay maalinkii waxaa ka isticmaali kartaa dhowr qaando 2 qaandaa ka isticmaali kartaa sida haddaa ujeedid biyaha aa cabaysid maalinkii waxaa ku darsanaysaa 2 qaando caagaaga aa ku darsanaysaa liintaada ku darsanaysaa haddii aa haysatid qajaaraa ku darsanaysaa reexaanta sidoo kaleenta maasha allah aad iyo aad u fiicantahay reexaanta liin dhanaanta qajaarka waxaasoo dhan maxay ka caawinayaan miisaankaaga sida degdeg uu ugu dhici lahaa cuntooyinka aa isticmaalaysid quraacaha aa samaysanaysid haddii markaas aa fruitis aa shiidanaysid mar walba inuu la jiro oo aa ku dartid waaye maxaa yeelay proteins badan oo leeyahay omega 3 oo leeyahay vitamins badan oo leeyahay maxay ahayto dharag badanna waa ka dareemaysaa miisaankaagana adigoo aana dareemin uu dhaqso kaaga dhaca insha allah haddii aa cuntadoo dhan aa wada badashid insha allah asagana natiijadiisa waa helaysaa haddii aa caano aa cabay sidoo kaleenta caanaha low fatka ama caanaha almond oilka almond milkiga ah waxaa sameynaysaa qaantaa ku qasanaysaa markii uu fariisto kadib saas waad ku cuni kartaa haddii aa yogurka oo kale aa isticmaalaysid asagana sidoo kale intaa ku darsatid fruitis yar inaa jarjartid waa ku darsan kartaa oo quraac ahaan waa cuni kartaa snack ahaan waa cuni kartaa casho ahaan waa cuni kartaa maasha allah marka waxaa idin leeyahay mar walba ha lisugu roonaado faa'iidooyinkiisana inta ma kusoo koobi kari maxaa yeelay baruurta wuu shiilaa omega 3ga aa isticmaalaysid wuxuu ka badan yahay omega 3ga aa ka helaysid malayga sidoo kaleento calciumka aa ka helaysid caanaha shanjibaar yani ka badan aa ka helaysaa maxay ahayto jaysiidka aad iyo aad marka u fiican yahay waxaa kaleento oo asagana sidaasoo kale uu qani ku yahay ukunta wixii aa ka heli lahayd ka badan aa asagana ka helaysaa insha allah marka waxaa idin leeyahay waxaa kaloo ku jirtaa maado oo maxay ahayto baruurta markaas kaa saacidaysa inay dhaqso kaaga shiilanto ayaa iyadana ku jirtaa marka waxaa idin leeyahay mar walba ha lisugu roonaado maxaa kaleento u roon yahay wuxuu u roon yahay shaqada wadnuhu u roon yahay waxaa kaleento u roon yahay maskaxda wuu ku kobcinaya asagana sidoo kaleento u roon yahay waxaa kaleento u roon yahay ilkahaaga wuu u roon yahay asagana sidaa ujeediin sawirka meesha ka muuqdo marka faa'iidooyinkiisa 1 iyo 2 ma ahan aad iyo aad u faa'iidooyin badan yahay wuxuu leeyahay protein oo leeyahay vitamins oo leeyahay omega 3 oo leeyahay calcium oo leeyahay zinc oo leeyahay yani maanta dhan waa sharxa hadaa dhaho yani ma la soo koobi karo mar walbana waxaa fiican waxaa isticmaalaysid inaa asaga ku darsatid biyaha inaa asaga ku darsatid caanaha haddii aa cabaysa asagaa ku darsatid biyahaaga mar walba ee caagadaha kuugu jiraan waa in mar walba
aa ku dhex darsataa asaga. haddii aa sii awoodidna liin dhanaanaa ku daraysaa. waxaa kaloo ku daraysaa mintiga ama reexaanta iyo qajaarka. maalinka biyaha aa cabaysid bal fiiri adiga naftirkaaga xitaa tijaabi faa'iidooyinkiisa sidaa u aragtay. daalka badan, kor xanuunka wuu u fiican yahay, mafaasilka ama maxay ahayto kala baxtayaasha lafahoo kaleento aad iyo aad ugu fiican yahay. maanta dhan waa ka sheekeyna haddii aan dhahana inta ma lagu soo koobi karo. marka cuduro badan xitaa oo jirka markaas oo wadnaha oo muxuu ahaaye u imaan lahay wuu ka kontaroola oo wuu ka difaacaa. teeda kaleentana dadka oo dhiig karka qaba aad iyo aad ugu fiican yahay. sokortana sidoo kaleento way u fiican tahay. dhiigana sidoo kaleento maasha allah. marka waxaa idin leeyahay walaalay qaaliga. teeda kaleento wuxuu la dagaalamaa xitaa soo degdegista duqnimada amaba soo degdegista maxay ahayto da'da wuu la dagaalaa asagana. isticmaalkiisa inaa badisid. waxaa kaleento asagana u fiican yahay iltihaabaadka amaba muxuu ahay infekshanada markaas jirka ku dhacaayo. jirka gudihiisa infekshano ku dhacaya jirto. asagana sidoo kaleento maasha allah ku dhan maalinkii inaa isticmaashid isku day 2 qaando inaa isticmaalihaysid waana ka faa'iidi doontiin hadduu ilaahay yiraahdo. haddii aa ka hesheen videoga sii sheer garay asxaabtiina la wadaaga. aniga waxa aan mar walba aa ka faa'iido waxaan jeclaa inaa idinla sheer gareeyo. wixii markaas idinkana fikirkiina hoos noogu reeba qaybta commentiga. maxaa jeceshihiin inaa idinkala soo hadlo. wax walba waxay leeyihiin faa'iido iyo dhibaatooyin ay leeyihiin. marka insha allah wax walbo ra'yigiina aniga waa ii muhiim mar walbo. dhiirigelinayna ii tahay kommentidiina quruxda badan leh. waana mahadsantiin sida wanaagsan ay la socotaan. intaan videoga mid lamid ah ku kulmi doono waxaa idinkaga sii tagaa walaalay qaaliga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.